dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiiba qof dhaliilayaa. bismillahi raxmaani raxiim. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. walaalahayga soomaaliyeed salaan baan idin salaamaya gaar ah. waxaan ilaahay subxaana watacaala ka baryaya inuu qalbigeena midayo. waxaan rabaa oo fariiqan la soo duubay inaan idinla wadaago dhibaato waxaa ina haysata aan sidaas u buurnayn laakiin annagu aan buunbuuninayn. waxaa jira shakhsiyaad fitna wadayaal ah oo u taagan in ay fashiliyaan soomaalinimada. ma ahan arrin aan ogolaan karno. waxaan idiin sheegayaa dowladdii ugu dambeysay hadda ee 4 sano ugu dambeysay madaxweynaha ka xasan sheekh dadkii la dagaalamaya oo dhan waxay kula dagaalamayeen sabab qabiil, sababtoo ah wuxuu ka dhashay beelhebel. dowladda hadda inoo dhisantay ee ah dowlad aan ku wada faraxsanahay qalbigeena wada furan yahay oo madaxweynaha ka yahay maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo, hadda waxaa u taagan dad raba inay kula dagaalamaan qaab qabiil. ilaahayga idin abuurtay ka cabsada. soomaaliya waa inaga dhaxaysa labadiina qabiil ee midda kan kale uu fiirsanayo malaha. waa arrin naga wada dhaxaysa. dadka wanaagga u saaxiibka ah waxaan u soo jeedinayaa kan xumaanta wada marka uu dagaal u istaago oo uu rabo inuu xumaha faafiyo, waxaa kugu waajiba inaad adiguna dagaal u istaagto aad wanaagga ku faafinayso si aad xumaanta uga hortagto. waan hubaa inta wanaagga jecel ayaa ka badan inta xumaanta jecel. haddii aan u istaagno innaga ayaa ka badan. fadlan aan ka hortagno tuugada isku bahaysatay fashilinta ummadnimadeenna, fashilinta qarannimadeenna, fashilinta dowladnimadeenna, fashilinta dalnimadeenna. waxdana nooguma jirto in nin dhuuni qaata ahi fariin been ah oo uu soo duubay aan dowladdoonna kula celowno. waxaan hubaa waxyaabaha brobagandada ah ee ay faafiyaan inaysan ahayn arrin sax. soomaaliya ha midoodo, ku midoobi mayso. soomaaliya ha israacdana isku raaci mayso. si ay u midowdo waxay kaaga baahan tahay inaad shaqo qabato. si ay isku raacdana waxay kaaga baahan tahay inaad shaqo qabato. fadlan muwaadin u istaag badbaadinta qarankaaga. aynu la shaqayno dowladda cusub ee hadda inoo dhalatay. waxaa inoo ballan ah inaan garab istaagno madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo iyo xukuumadda uu soo dhisi doono 4 sano ee inagu soo wajahan aan shaqo adag galno. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.